بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا وناكسون dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulka siyaasadda ee janalka warcadda media aad noogu barateen maalin walba inaan idiin soo gudbino barnaamijyo siyaasadeed oo ka hadlaya arrimaha caalamka geeska Afrika iyo Soomaaliya waxyaabaha markaasi ugu xiisaha badan ayaynu barnaamijka diiradda kaga hadalnaa barnaamijkeenan xulka siyaasadda ee janalka warcadda media waxaan idinka codsaneynaa intaanu gudagalay inaad subscribe noo saartaan like iyo share aad noogu dhuftaan si muuqaalka meel fog uu sii gaaro aynu ku bilaabnay waxaa markaasi toddobaadkan aakhirkiisa soo dhamaaday shirkii u dhaxeeyay golaha mustaqbalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyadoona markaasi loo sababeeyay arrimaha siyaasadeed ee waddanka waqtigan ka taagan inay tahay mid aad u sareysa waxaa la leeyahay fashilinta ama in guul daro uu ku soo dhamaado kulankaas inuu sabab u ahaa qodobo ay ka mid tahay in golaha mustaqbalka ay soo jeediyeen in doorasho degdeg ah lagu qabto maamulada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug waxaana ay soo jeediyeen in doorashooyinka la qabto ama lagu qabto ay noqoto mid doorasho dadban ah sidaasni waxaa markaasi diiday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay in arrintaas ay tahay mid u taala golaha markaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyadaheeda dastuuriga iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ay markaasi ku qabanayaan doorashooyin qof iyo cod ah sidoo kale shirarkaas markii ay soo dhamaadeen kadib waxaa dhacay kulamo kala duwan oo ay markaasi madaxda golaha mustaqbalka kala duwan oo ay la yeesheen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wakiilo ka socday beesha caalamka iyagoo kala hadlayay in shirka uu natiijo la'aan ku soo dhamaaday uu sabab u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayay dowladda federaalka Soomaaliya soo saartay warqad ay kaga hadlaysay in shirkaasi fashilintiisii uu sabab u ahaa madaxda golaha mustaqbalka qaranka haddaba is-eedayn kadib wararku waxay sheegayaan in labada dhinac ay markaasi is-cayrsigooda mucaaradka iyo madaxtooyada weli uu yahay mid sii socda isla markaana la leeyahay meel habboona ma joogo kadib digniino adag oo ay garabyadu isdhaafsadeen waxay markaasi madashu ay sheegaysaa ama ay u qabatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in markaasi waqtigiisa uu ka haray 77 maalin golaha mustaqbalka ayaa hadda abaabulaya kulan xoog badan oo ay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo siyaasiyiin xildhibaano iyo madax hore ay kaga qayb galayaan kuwaasoo ay kaga hadli doonaan xaaladaha siyaasadeed dalka iyo waxyaabaha shirkaasi sababta u ahaa inuu kusoo fashilmo madashu ayaa hadda wada abaabulkii ugu dambeeyay iyagoo raba inay markaasi shirkaasi kusoo beegaan aakhirka toddobaadkan maalinta berita ama caawa lagu wado inay markaasi magaalada Muqdisho ku qabtaan kadibna ay safaro dibadda iyo gobolada markaasi aadaan kadibna ay bacdul soon ama Ramadaan ay dib u soo laaban doonaan wararku waxay intaasi tilmaamayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado abaabul iyaguna dhankooda ku aadan sidii ay uga hortagi lahayd saameynta golaha mustaqbalka iyo sidii markaasi loo cariirin lahaa in qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka haladoorka ah shirarka noocaas oo kale ay kasoo qayb galaan subaxnimadii saaki waxaa qeybo kamid ah magaalada Muqdisho lagu waabariistay in dhagaxaan cusub dowladdu ay soo dhigtay xaafado kamid ah degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo ay kamid tahay degmada Wadajir oo markaasi qeybo hor leh ay dowladdu dhagaxaan soo dhigtay kuwaasi oo aan la ogeyn waxyaabaha ilaa hadda uu sababta u noqday maadaama dowladdu ay hore u sheegtay in wadooyin badan ay ka qaaday dhagaxaanta sababo la xiriira in uu xaaladaha amni magaalada Muqdisho uu soo hagaagay sidoo kale golaha mustaqbalka qaranka ayaa waxa ay wadaan abaabul ku aadan sidii ay markaasi cadaadis xooggan ay u saari lahaayeen madaxda maamulada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug waxaa la leeyahay waxay markaasi sameeyeen siyaasiyiin ka soo jeeda saddexdaas gobol ay markaasi shirar kala duwan la qaadanayaan iyagoo markaasi ku cadaadinaya sidii Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug loo saari lahaa culays ku aadan in halkaasi
doorashooyin dhaqsi ah lagu qabto maadaama waqtigii doorashada markaasi mar hore lasoo dhaafay. Arrimahaas ayaa loo arkaa in cadaadis dowladda federaalka Soomaaliya uga imaan kara maadaama maamuladaas saddexdaas maamul ay horey sharciyadoodu u dhammaatay islamarkaana hadda ay ku joogaan heshiis ay markaasi wada galeen iyaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaa abaabul ku aadan sidii ay markaasi golaha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed ay ugala wareegi lahayd hoggaanka dhanka bulshada oo ay hadda in badan bulshada ka mid ah oo ay markaasi ay raacsan yihiin. Arrimahaas siyaasadeed oo waddanka ka taagan ayaa waxa ay markaasi sabab u noqotay xaaladaha siyaasadeed inay sii cakirmaan, waxaana markaasi loo badinayaa in golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda qaarkoodba hadda ay safaro gali doonaan kadibna Ramadaanka marka uu soo dhammaado ay soo ciideystaan dib ugu soo laaban doonaan golaha markaasi gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana la leeyahay wixii markaasi ka dambeeya ay noqon karto xaaladda siyaasadeed dalka mid markaasi sii xumaata. Haddaba muxuu yahay qorshaha beesha caalamka? Beesha caalamka ayaa wada cadaadis ku aadan labada dhinac inay markaasi ay joojiyaan hadallada kulul oo ay isdhaafsanayaan islamarkaana ay gaaraan heshiis loo dhan yahay sida ay soo saareen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska, iyagoona hadda ay wadaan kulamo kala duwan oo la qaadanayaan madaxda golaha mustaqbalka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa markaasi madasha iyo dowladda federaalka Soomaaliya labaduba ay taagan yihiin mowqifyo adag oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dastuurka ay hadda wax ku bedel ku sameysay sheegtay inuu yahay midka sharciga lagu dhaqmi doono, halka mucaaradkana ay haystaan dastuurkii 2012 islamarkaana ay diidan yihiin qodobada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay wax bedelka ku sameysay. Baarlamaanka ayaa haddana horyaala qeybo ka mid ah dastuurka cutubiyada 9aad iyo 10aad, 5aad ilaa iyo 10aad. Qodobadaas iyo wixii markaasi xaaladaha siyaasadeed kusoo kordha dalka waxaan markaasi idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena siyaasadeed. Sidoo kale weli waxaa xiisad markaasi ka taagan gudaha magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay u dhexeysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka degmada Buur-Hakaba. Maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa sheegay in ay markaasi si toos ah uga soo horjeedaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya islamarkaana aysan wax oo ku aadan heshiis ah ama islamarkaana awaamiir ah kala shaqeyn doonin. Ciidamo ka tirsan taliska Midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan degmada Buur-Hakaba gaar ahaan kuwa Itoobiya ayaa wada cadaadis ku aadan in markaasi halkaasi aysan saldhigyo ciidan dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo golaha maamulkaasi halkaasi ka tirsan in ay ku sameysanin si aysan saameyn amni ugu yeelanin degmada Buur-Hakaba. Wararku waxay intaas ku darayaan in wasiiro ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed ay sheegeen in xero ciidan markaasi ay noqotay garoonka diyaaradaha degmada Buur-Hakaba kadib markii ay sheegeen in halkaas lagu tababaro ciidamo sida ay tilmaameen inay yihiin maleeshiyaad islamarkaana oo ay abaabulayaan kuwa kasoo horjeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba Koonfur Galbeed ayaa dhankeeda wada abaabul ku aadan sidii ay dadkaasi ama maamulka halkaasi ka jira maamul uga bedeli lahayd. Haddaba muxuu noqon doonaa go'aanka madaxweyne Cabdicasiis Laftigareen? Sideesuu saameyn ugu yeelan doonaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya? Muxuuse mustaqbalka degmada Buur-Hakaba u noqon doonaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya? Waa su'aalo adag oo ay isweydiinayaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku aadan waqtiga hadalkan la joogo sida ay u karkarayso siyaasadda Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba midda dalka Soomaaliya. Haddaba wixii wararkaas kusoo kordha xaaladaha abaareed iyo midda markaasi amni barnaamijyadeena dambe iyo idinku soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Waxaan idinku codsanaynaa subscribe noo saartaan, like iyo share aad noogu dhuftaan barnaamijkeenan. Nabadgelyo.